السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعن داوديال كسو دوادا warbixin xasaasi ah oo uga hadli doono arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxa ku hardamaya qaar kamid ah wadamada caalamka kuwaas oo xusulduub ugu jira in ay faragelin xoogan ku yeeshaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya haddaba doorashada Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inay u dhaxayn doonto maajo iyo sidoo kale danwadaagta Yurubta galbeed warbixintan ayaana ku eegi doonaa saaxiibayaal wasiirka iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ee dalka Sweden Per Olsson ayaa ka soo dhex muuqday goobta lagu saxiixay heshiis doorasho oo ay wada gaareen madaxda shanta maamul goboleed duqa caasimada iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble 27 May ee sanadkan Mr Olsson oo aad ula dhacsan sida fudud ay ugu suurta gashay inuu farageliyo arrimaha Soomaaliya ayaa waxa uu bogiisa Twitterka ku soo qoray waxaan ku faanayaa inaan hadal jeedin ka sameeyo xafladii taariikhiga ahayd maanta ka dhacday magaalada Muqdisho rabshadaha baahsan iyo jahwareerka bulshada ee qotada dheer ayaa doorashooyinka halis geliyay sidaasi waxaa sheegay Martin Blood oo ah saxafi iyo cilmi baare sare oo ka tirsan macadka daraasaadka barwaaqa sooranka ee London University xaaladaha uu xusay Martin Blood iyo waliba kuwa ka ba'an ayaa muddo dheer ka jiray Soomaaliya soo ka dhigan in Soomaaliya uu nuglaato faragelin dibadeed sidoo kale xilliyadii uu wadanku ku jiray hubaal la'aanta waxaa abuurmay howlfuliyayaal dhiga fudud oo u darban inay qayb ka noqdaan hagardaamaynta Soomaaliya marnaanta awoodda dawladnimada waxay soo jiidatay hay'adaha ka macaasha fowdada oo ka diiwaan gashan wadamada galbeedka ama hoostaga qaramada midoobay si ay hay'adahan ugu fulaan howlahooda guracan waxay shaqaaleystaan Soomaali haysatay jinsiyadaha galbeedka ama kuwa hanti maguurto ah ku leh dalalka Afrika iyo Carabtaba gargaarka dibadda marnaba ma uusan noqon mid ka maran dana siyaasadeed oo dhaawaca ama halis geliya jiritaanka dawladaha dawarsi ku noolka ahi sida ay ku doodayaan kuwa faaleeya arrimaha siyaasadda cakiran ee Soomaaliya waxa ay tibaaxayaan in Soomaaliya ay ku hardamayaan saddex dhinac kuwaas oo kala ah Mareykanka Yurubta galbeed oo xulafaysata madaxweynta bariga dhexe iyo Turkiga waxaana la rumaysan yahay in dagaalka ugu adag ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya uu dhex marayo Turkiga iyo Yurubta galbeed kadib markii Britain ay ku fashilantay inay si gooni u socda uga dhex qaraabato Soomaaliya wixii ka dambeeyay cayrintii Haysom waxay go'aansatay inay isku lamaaniso midowga Yurub iyo Norway oo aan xubin ka ahayn EU qorshahoodana waa inay Turkiga geeska geliyaan way u arkaan in istiraatiijiyadiisu ay halis ku tahay danaha ay gobolka ka leeyihiin faragelinta UK ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay si weyn u soo shaac baxday dhammaadkii bishii Abriil ee sanadkii 2019 kadib markii Danjire David Conser uu kulan albaabada u xiran yahay kula yeeshay xarunta safaaradda Muqdisho xildhibaanada federaalka Soomaaliya ee haysta dhalashada dalkiisa qoraal ay soo saartay safaaradda ayaa lagu sheegay in labada dhinac oo aan cid kala barxin ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal danwadaagta Yurubta galbeed waxay u arkaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay shakhsi doonaya inuu xur u noqdo dhaqangelinta fikirkiisa siyaasadeed suuragalna ka tahay in uu qaato go'aan dhaawacaya danahooda waana sababta ku riixaysa in ay qaataan dhabba kasta oo keeni kara inuusan Farmaajo madaxtooyada dib ugu soo laaban Farmaajo wuxuu qiray in Shisheeye uu dhabjinayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ila wargal oo ku dhow madaxtooyada ayaa sheegay in hadalkaas uu ahaa mid ugu dur xulayay ergada danwadaagta Yurubta galbeed ee ku sugan gudaha xeyndaabka xalane balse Farmaajo wuxuu ilduuf siyaasadeed sameeyay markuu ay ra'iisul wasaare u magacaabay Maxamed Xuseen Roble oo ah Soomaali Sweden u shaqeeyay hay'adaha gargaarka dano dhaqaale iyo mid deegaano ku leh dalka Kenya dhammaan xaaladahaasi waxay Roble u nugleen karaan inuu u dhaga foodaado diblomaasiyiinta fadhida xalane si uu masaalixdiisa gaarka u ilaashado ilo xogogaal ayaa sheegaya in la fashiliyo qorshihii Farmaajo uu doonayay in fursad lagu siiyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka si ay u qabtaan doorasho qof iyo cod ah ay ka dambeeyeen Yurubta galbeed fashilinta qorshaha waxay u adeegsanayeen taliyihii ciidanka booliiska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John oo haysta dhalashada dalka Ingiriiska waxaa intaasi weheliya in cidda kale irdhaysay Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ay ahayd danwadaagta Yurubta galbeed ila diblomaasiyadeed ayaa waxa ay sheegayaan in laga meermeero doorasho dadweyne ay sabab u tahay inaysan jirin qof loolan adag gari kara Farmaajo si xafiiska loo dhaafiyo taas ayaa keentay in la doorbiday in la aado doorasho dadban oo ah xulasho ama magacaabis si loo soo saaro xildhibaano loo adeegsado cayrinta Farmaajo inkasta oo Farmaajo ku dadaalay inuu wax ka qoro heshiiska doorashada dadban intuusan magacaabin ra'iisul wasaare misana awoodtirka guddiga xulashada heer federaal iyo habraaca awoodda gacanta loogu geliyay madaxda maamul goboleedyada waxay cadeyn u tahay in Roble uu fulinayo qorshe laga hagayo Stockholm iyo London waxa la xaqiijinayaa in Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe la saaray culays ah inay dhabarka u jeediyaan Farmaajo
halka gudoomiye maxamed xasan ciro la dooransiiyey inuu u hoggaansamo habraaca awoodda looga xayuubiyey laga keenayo mooshin looga xayuubinayo gudoominimada iyo weliba xubinimada guddiga. waxaa la soo tabinayaa in Mareykanku uusan wax dhiba u arkin inuu mar kale soo laabto Farmaajo, taas ayaana keentay inuu kor ka daawado hardanka u dhexeeya Turkiga iyo dan wadaagta Yurubta Galbeed. Mareykanku wuxuu culays saarayaa wadamada Khaliijka Carbeed ee lacagta ku soo fataha Soomaaliya xilliga ay jiraan doorashooyinka. dad badan ayaa rumaysan in weli Farmaajo haysto fursad soo laabasho, halka ay qaar kale rumaysan yihiin in xarigiisa aysan xoolo ku jirin.